labada qolob ana weydiistay aan u tago labada qolob iyagu waan iga aqbaleen waana maxay hayday meeshii aynu dan ka leenahayba waa annaga u tagaynay anagu sugi meynay marka qoladan maxay hayday inoo sokaysay de jaarka nahay xabashida bariyaha waxa noo socon jiray maxay hayday intisaalaad badan baanu ayaanu lahayn ilaa maanta anagu waxaan u qabnaa in aad iyo aad anagu aan u xagga iyaga wax waliba uga sahlanaadeen علاقاتكي أنو أنتي أنو كده ذلك كده ذلك yaabo laakiin xaggooda ah oo aanu yar dhaliilaynay baa jira kuwaasaan doonayaan ka wada hadallo bal wixii aanu wali 460kii baa isugu kaay dambeysay aniga iyo ninka meesha ka madax 490kii baa leeyahay 490kii baa isugu kaay dambeysay gooraanu is aragno maxay ahayd ninka dadu meel level hoose oo regional level iyo waxa bunba cilaaqaad ayay ka socdeen marka maanta wuxuu ogolaaday inaanu annagu waa is aragno marka 3 ama 4 casho hadii la yiraahdo sababtii joogaya waana isarkaynaa wax naga xumo maanta aanu jiraan meel wanaagsan baa arka iyagu noo maraya laakiin xiriirkii officially sidii ayaa habkii loo habayn lahaa baan wali habaysnayn regional level sidoo berigii hore maxay ahayd minor and major business kii maxay ahayd problems kii aanu habaynay in la isu arko si joogto ah oo ay DCyadu sarkaan oo governatoriyaashu sarkaan oo commanderska police-ku sarkaan oo qolada army-gu sarkato xiriir had iyo jeer toosi jiro oo official ah oo dhisan marka baltiibaan ku dadaalayna hadii alla yiri sidii aan u soo dhamayn lahayn xagga shishe nimankaasi waxay hayeen niman aad isugu keenay Talyaanigu looga dhigayba yani goosashada ay goosteen waxay u goosteen Talyaani naceeb iyo af Talyaaniga ka carar ayay u goosteenba oo yani maxay hayday arrimada ay goosteen arrimada loogu sheekay sida Arab loogu sheekeynayo Yuhuud bay noqdeen xaggan waxa loogu sheekeynayay waxa nagaga yaacayaan nuunacayaanba waxa weeye cilaaqaadka Talyaaniga la leenahay marka halka hadii uu badweeyaan baasiri noogu yimi waa ka wada hadalay rag wasaare ah oo meesha joogay oo ay sarkeen iyo aniguba aad baan uga raarinay inaan taasi wax ka jira ahayn labadan dal hadii uu dalku wada jireen dal la wada saaxiib oo Talyaan la wada saaxiib ay hayeen hadii ay kala go'aan oo ay maanta laba noqdaan laba dal oo Talyaan la saaxiiba oo ay cilaaqaad wanaagsan leeyihiin ay noqonayaan marka hadalkii halkan iyo warqadan wasiir khaarijiyaha ugu sii dhiibay ayaa xaga ugu tagtay dabeetaasay ka dhalatay inaan weydiisto anigu waa bal maxay hayday aan idin ma doon wala hadallo iyana way iga aqbaleen inaan maxay hayday inaan u tago marka taana waxaan doonayaa inaanu bal madowga la abuuray inaanu sameeyno oo aan meesha ka saarno iyadoo ay tahay maanta reer Yurub ninka qurahe hadduu maanta waxna qabto ama inaba ictiraafo aan ku eedoobi karin waa Talyaani dawladda ku eedoobi karin Ingiriis eed baa ka raaci karta Mareykan eed baa ka raaci karta Faransiis maxay hayday farxalaan baad la gashay baa la oran karaa laakiin ninka maxay hayday maanta aan isagu ay u banaantay albaabka aan wax eedi ka raaci karin hadduu Soomaaliland garab siiyo aan eedi ka raaci karin wax lagu tilmaamay Talyaani weey marka inaanu kasabno hadii inaynu kasabno maxay hayday niyasamidiisa iyo ta'yiidiisa wax loo baahan yahay weeyaan sida daraadeed hadii alla yiri waxaan jeclahay inaan intii aan ka arki karo dawladda Talyaaniga inaan ka arko waxaan la socdaana waxa weeye hore aan Prime Minister Soomaaliya oo baan tagay meesha si wanaagsan baan soo afgaranay ilaahay maxay aadan Cabdi Rigaaf ku hadli jiray ay bajeeray jireen warwa sidee waxaan anagu Talyaani meel anagu albaabaan iska furi kari weynay ninkan aan afkoodii la garanay daftafta la galay muxuu marka yani way iga horeeyay sumcad wanaagsan iyo aqoonina way iga horeeyay meesha meel ay cusubtay ma marka rajo weyn baan ka qabaa in hadii aan is aragno inaanu wax madmadow badan oo been oo la abuurayna saari karno يعني حرير دمبنا أن أبوري كرر توين أركض أنا وحكي النتيجة النقطة دبت. waxaa intii ka dambeysay khudbadaadii shalay waxa ay idaacadaha qaar kood ay sii deynayeen in arigii geeska Afrika iyo Yemen ba ka tagayay la joojiyay Sacuudiga joojiyay arinta iyada maxad ka oran lahayd waxa ka wariyay ka daba joognaa liman baa ku maqan maxay ninkii hay'adaha waa u yeedhnay waana way tageen meeshii way soo eegeen
way caddeeyeen meesha xoola aynu leenahay saan shalay baarlamaanka uu sheego xanuunsanaya ma jiraan raggii keenay waxaa bilaabay yidhi afriga iyo xaalada qoa ee ilaahay uu had iyo jeer uga baryaya Soomaaliland xumaan iyo baaba iyo balaayo uga baryaya meesha ka keeni doona iyaga laakiin arrinka waxa weeye waa aynu ka tashan doono waxaynu ka yeelayeen dhaxdeena wuxuu ka qaban doono laakiin xaqii dabadda waraaqaan badan baanu qoray rag madaxahoo maxay ahaydey Sacuudiga ah baanu u diray maxay ahaydey imikana nimankii ku maqnaa wafdigii hay'adaha ku saabsanaa waxaanu ku heshiisnahay in marka ay ka soo noqdaan warkaasi soo arkaan dhulkii reportka ay qoraan qoladii inaga dhakhtarada aynu u diray inaga ahayd reportka ay qoraan inay counter signature ku sameeyaan oo iyaguna ansixiyaan oo yidhaan waa la qabnaa taas markaanu dadnaan reportka caalamka u diro inaan cudurkaasi dalkeena jirin waxaanu intii aanu ka dagaalami karno ka dagaalay laakiin inagu dhacday dilbaxadii arigeeni waa la joojiyay xoolaheeni waa la joojiyay maxay ahayd balninka maxay ahayd bari ka maalayo wax ka helayo shalay tan ka helayo aday kula jirtaa waxaad ka helaysay ya aday kula jirtaa adiga ada arki doona laakiin waa intii aanu ka qaban karno waa iyaguna temporary imika ayay yiraahdeen waxaanu gurigeeda qabnaa imikana haddaan dabada u baxona aan ku dadaali doonaa hadday ii suura gasho inaan soo maro aniguna oo aan bal ragga iminkaan sheegayo ragga umaraha baa ka mida inaan ii sii sameeyo maxay tamhiid oo khusuusan iyo halay ogolaaday inaan imaado meesho aan bal waxaa ragga madaxda ah aanu iska aragno arrinka haddii ay suura gasho iyagu ay ilaahan waa loo baahan yahay inaad meesha timaado ka dooda wax ka gasho marka arrinka waa ka dadaalaynaa iyaguna temporary bay ku sheegeen marka haddii United Nationka iyo maxay haydee iyo inaga dhakhtaradeenni iyo haddaan waliba iyaga waxaan arrimadan ku waxa way soo dirta dhakhaatiir haddii aad doonaysaan eegta meesha oo aragtaa xoolaha iyagii deegaanka aanu ka qaban karro waa ka qabanaa laakiin nabarkii waa inagu dhacay arrin positive ayada u gudbiyo Soomaaliland ka gudbiyay oo wanaageedii wixii uu sheegay iminka wadi Addis Ababa sii maray halkaan waxa ku sugan kooxo madaxdii Soomaaliyeed kamid ah marka ma laga yaabo iyagana in sidaas oo kale aad ugu yeelato saaxiibood soo jiidato oo ka dhaadhayso arrimaha kula kulantaalka shaydaan aan noqotay wixii Soomaaliland uu ku tari karaya shaydaan aan noqotay wixii Soomaaliland ku tari karaya waana u tagaya waana la saaxiibay socdaalkaagu muxuu ku koobnaanayaa labada meelood aad sheegtay mise waad ku tala jirtaa inaad meelo kale haddii ay suura gasho dhulka la iskama maro maadeen madaxweyne dhulka iskama dalxiis uma maro waxaan u socdaa waa istifaad rasmi ah meeshii dhul badan baan filaya haddii ay suura gasho inaan jecelahay inaan soo maro oo wali laakiin aanan qabuulkoodii haynin marka waan tegayaa iminka ma odhan karo waayo ma haya qabuulkii weli way